عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام أنا أصحابتي امتحان ساينس 24 waxaan ka soo hadalnay casharo fara badan oo kala duwan oo ku saabsan boqolleyda amase percentage waxa loo yaqaano marka percentage-ka aad iyo aad buu ugu muhiim yahay dadka qof markuu rabo inuu baranayo xisaabta marka maanta waxaan ka hadli doonaa qayb kaloo muhiim ah taasoo ah percentage increase marka percentage increase waxa weeye shaygu markuu qiimo joogay oo qiimihii kor uga kacay oo qaaliyoobay waxaa ku darsamaya percentage tusaalahaan waxa kale shay baa la iibinayaa waxaa ku darsamaya 2% oo kale shay ku darsamaya 3% baa ku darsamaya 4% 5% marka shaygii qaali buu noqday marka qiimaha uu qaaliga noqday qiimihiisii hore lagu sheegaya waxa lagu odhanayaa 5% baa ku darsamay supermarket marka wax ka iibsanayso oo kale ama supermarket weyn oo kale 5% baa ku darsamay marka qiimihiisii hore waa lagu sheegay laakiin qiimaha inta ku darsamay inaad u soo saartid oo garatid aad iyo aad ayay muhiim u tahay waxaa jira qayb kale la yidhaahdo percentage decrease percentage decrease waxa weeye waa shaygii markuu qiimihiisii hoos u dhaco tusaale ahaan oo kale marka aad tahay customer aad dukaamada wax ka iibsanaysaa customerka la tahay waxaa lagu odhanayaa 15% baan kaa dhimanaa ama 5% baan kaa dhimanaa 5% inta ay tahay inuu qofku magaranaysaa soo saaro ama markuu shayga iibsanayo dukaamada lagu soo qoro 30% baan maanta ka ridnaynaa waxyaalahan iibinanay in qofku garanayo magaranaysaa percentage ka tahay qiimihiisii hore aad iyo aad ayay muhiim u tahay marka sidaa awgeed waxaan ka hadlnaa markaa maanta percentage increase insha allah casharada dambe hoosan waxaan ku hadli doonaa percentage decrease haddii lahaa idmo marka tusaale ahaan oo kale waxaa la yidhi a shop assistant has a salary of 16,000 per month marka shop assistantkaasi wuxuu helayay salary ah 16,000 bishii haddii baa leeyahay haddaba percentagekaas uu kordho 8%. Calculate the amount extra he receives a month. Imisuu helayaa extra 16,000 buu ku shaqeynayo salarigiisu ahaa haddii 18% haddii loogu daray imisuu helayaa lacag extra buu helayaa su-aasha labaad waxaa soo saartaa salarigiisa cusub bishii salarigiisa cusub imisuu helayaa markaan su-aashan oo kale aan ka shaqeynano marka koowaad waxaan qoran horta waxa leen siiyey marka hadda waxaan haysanaa 16,000 oo ah lacagta originalka ku shaqeynaya waa originalku lacagta ku shaqeynaya waa salarigiisa ku shaqeynaya waxaan oran karnaa waa old salarigiisa ku shaqeynaya old salary marka old salary waxa waa original shaygu wuxuu ahaa marka haddii shay la iibinayo wuxuu noqonaa shay inta lagu iibinayo original waxa shay ahaan hadduu kordhayo kale original noqonaya maadaama hadda ninkan lacagtan uu qaadanay isagu old salary marka old salary waxaa la mid tahay original price ama original value ba la mid tahay bay isku mid yihiin old salary hadda aan halka aan qoys furo waxaa la mid tahay original value ama original price la mid tahay marka intaas original price kaasi hadda uu wuxuu ku shaqeynayaa 16,000 markaas ku shaqeynayaa waxaa kaloo la siiyey lacagta kordhay oo ah 8% marka b waa inta ku kordhay waxaa la mid tahay waa 8% oo increase waa inta ku kordhay marka waxa aad iyo aad muhiim halkaa markaa mar inaan ogaano originalkaas oo qof ku shaqeynaya marka hore waxay u taagnayd 100% waa 100% laakiin hadda waxa ku kordhay 8% baa lacagta kusoo kordhay marka su-aasha laga doonayo inuu ka shaqeyno waxa weeye imisa lacag ah oo extra ayuu helaa buu helayaa imisa extra lacag marka waa amount uu helayo waa imisa amount uu helayo extra amount uu helayo marka waa amount la weydiiyey sorry amount-gan aan soo saarno amount-ga la weydiiyey hadaba xaggan waxaan ku qoranaa hadaba solution-kii solution-ka hadaba waxaan naqaanay formuladan kusoo barnay casharkii akan ka horreeyey oo ahayd amount-gu waxay la mid tahay original price-ka oo lagu dhuftay percentage
formula waa formula ku soo barnay 10 ka horreeyay formula aan isticmaalno maadaama hadda amount baa la weydiiyay formula waa isku mid amount waa la weydiiyay original price waxa la mid tahay waa salary only salary micni shay inta lagu yahay shay inta lagu yimaanay micni shaygaas inta waxa totalkii inta shaygaas markii hore ahaa way isku mid yihiin marka taas ka ku bedelana percentage-na waa inta ku kordhay marka inta uu ma ku bedelanayaa waxaan leeyahay amount-ga hadaan aan soo qaato original-ka old salary-giisa wuxuu ahaa 16,000 waxaan u fanayaa percentage marka percentage waxa 8% marka 8% waa inta lacagta ku kordhay soo saaray hadana inta saan soo qaybinaya hadda labadan la soo qaybiyo laba waa isku sanayaan ka 16 waxaan ku dhufanayaa 8 ka waxay soo baxaysaa 1280 فكل أبغى أشتري بونيكاسي لعبته كزيف كوهري يعني كسترجع بس إيش كوادنا هذا كشقينا فهو لعبته هري فكل أبغى ليه شديد قال لي تونتي سهرة هأوكر بس لعبته كسترجع وأوكر بس كل أبغى ليه شديد أنت بعدين اللي ما نسأش لبعض عندنا ما نسأش لبعض waxaa lana weydiiyey new salary-giisa new salary-giisa wuxuu la mid noqonayaa 16,000 ku shaqeeyay oo lagu daray lacagta extra-ga horay oo ah 1280 waxaan noqonaysaa old salary oo lagu daray increase inta ku kordhay waxaa la mid noqonaysaa 16,000 oo lagu daray 1280 marka intaas waxaa la mid noqonaysaa 17,280 haddaan 17,280 lacagta helay waa intaas saasaan ku saaraya marka saasaan u xisaabinayaa inta shaygaas من الشيء كردي مثلا أنت والله أنت ليش أنت كردي جماعة كردي ما كل فنيا إذا نسأت كوساري واحد ترى هب كله لكن سي أو هب كلام كوساري كرو أنت الشيء قاس أنت ومعني سليك وسوا مش أنت لويبي أمانتي لويبي أكوساري كلا مركا هدي هب كنا هتكش قيس واسع وهب كلا هتكش عين كرتا لكن هب كلا وين تصير صراحة ما كدام أن تصير كذي salaamka waxa lagu yiri ninkaas old salary-giisu wuxuu ahaa 16,000 percentage-ku kordhana waxa weeye waa 8% marka increase ma hadii la dhaho increase wala yiri amount-gana wala weydiiyay ama new salary-giisa la weydiiyay marka amount waxa la mid tahay salary-giisa cusub amount-gaas min salary-giisa cusub new salary marka qaacidada aan naqaano waxa weeye daxan ku qorto solution-ka waxaan naqaanaa amount-gana la mid tahay qaacidada xaggaas ku qoran qaacidada soo qaadanaya original old price-ka original price soo qoraya بس كمية بلا بس كمية original price أنا سكوا قرب وحلم old salary ولا قول فتاي percentage marka amount-ga hadaan soo qaato old salary-ga waxaan haystay 16,000 marka 16,000 oo lagu فتاي percentage ka percentage ka wada fakar hadeer 8% كود فكر هذا اللي حطوه because هذا كله فتوى 8% هذا كله اللي حطوه كله حسب بعض أنتم هنا وهذا نوت كيروه مكان سا واحد أمي مثلا أنا نقول percentage حسب بدري كما دام percentage increase يعني percentage كرداي وإن وحمل مكان أنا نقوله حاجة عقول قرية بصراحة كنوت
old salary old salary فيلم ليها مركب عين لحية توقع كنا قف كل شقين وفيلم ليها يعني العكس سلري وقادني بقول بقادني سلري يسوي قادني وحلم تاع بقول مركا قادني مركا بقول هذا حكون كردي انكريس وحكون كردي 8% مركا 8% كاسي ما دام اللي هي البرسنتج انكريس حوالي برسنتج بقولك وحكون كردي because شيء من هذول الحلوين من مركا بقول بقف بحين عتق بحين بقول بقف ودول عكس كان عتق قادني بس إذا أخذت العقبة حكون كردي مركا برسنتج انكريس يعني بقولك شيء أنتوا هامين حكون كردي هذا هو كله دراسة waxaan lagu daray 8% waxay la mid tahay 108%. marka haddaan doonayo percentagekan shayga micnihi inta lagu iibiyo ugu dambaysa haddii hadda la shayga la iibiyey inta ugu dambaysa lagu iibiyo soo saar micnihi saasa boqol uu qaatay oo micnihi salarigiisa cusub uu qaato oo bisha helayo waxay noqonaysaa marka aan hadda soo saarayo 108 saan waxaan ku dhufanayaa micnihi 108 waxaan ku dhufanayaa waxay noqonaysaa b-daas aan ku bedelinaya meesha b markaa b-daas aan ku bedelinaya marka 108 meesha ka timi inaan ogaataan tastaan u dhugo muhiim yani 108 waxaa ka timi micnihi salarigiisa oldiga salarigiisa wuxuu ahaa micnihi boqolkiiba boqol haddii waxaan ku darsamay 8 marka 108 buu noqonaysaa marka haddii uu dhaho percentage increase waa inaad ogaataa in shaygaas micnihi boqolka wax ku darsamay marka waxaan ku dhufanayaa haddee 108 marka 108 waxaan qori karaa haddaan halkaas command kana waxaan qori karaa 1.08 because of boqolkiiba 8 loo qeybiyo boqol micnihi hadda waxaa u dhigantaa 108 loo qeybiyo boqol micnihi ka kood xaggaas imaanaya micnihi bood xaggaas imaanaya marka ama dad saas u diisanaya waxaan odhanaa boqolka xaggana ay qorsaa waa asli meeshii waa same waxba dhibaataa male marka haddaan isu qaybiyo labadan iyo labadan isu qaybiyo 160 haddaan ku dhufto 108na waxay soo baxaysaa 17,280 marka waa isku mid marka sidana waa ku saari karaa micnihi sidan waa ku saari karaa sidii hore waa ku saari karaa micnihi tii hore waxaan soo helay micnihi salariga inta ku kordhay kadibna oldigiisaan ku darnay sida hadda aan ku qoran formulaas miisaan ku qoran ama se toos waan u saari karaa micnihi lacagtu magaranaysa salarigiisa cusub markaa ku shaqeynayo marka micnihi waa inaan ku daraa boqolkii inta ku kordhay inaan saa ku darsadaa haddaba okay intaas marka intaa markaan soo saaro oo aan haysto micnihi de shayga micnihi inta uu ku shaqeynayo micnihi aan soo micnihi haddaan ogahay micnihi inta uu salarigiisa ugu dambeeya ku shaqeynayo inta ku kordhay waan soo saari karaa waxaan odhan karaa micnihi inta ku kordhay isagu waxay noqonaysaa new salarigiisa salariga cusub oo laga jaray old salarigiisii hore marka maxay la mid tahay new salarigiisa waxay noqonaysaa 17,280 sawiratan si fiican u qoro 80 oo laga jaray 16 kun ku shaqeynayay marka labada haddaan kala tago waxay soo baxaysaa 1,280 lacagtaasna waa lacagtu inta ku kordhay marka labadan hab kaad inta ku shaqeyn kartaa habkan hadda aan ku shaqeyno waa shayga markii heli kartid inta uu micnihi uu lagu iibiyo ama qof intuu helay lacagtiisii inta ku kordhayna soo geli kartaa ama waxaad ku shaqeyn kartaa qaacidadii hore marka labaduba waa isku mid kii ku fudud ku shaqeyn kartaa labadabana waa aad iyo aad u fiican yihiin marka haddaan tusaale kala bixino tusaale ahaan oo kale aan u bixino tusaale c tusaale ahaan oo kale haddaan bixino tusaale ahaan oo kale waxaa la yidhi shayba percentage baa 16% buu kordhay waa increase marka increase maadaama haddii tahay shayga boqolkiiba boqolka wuxuu dhaaf 16% hadda ka dhaaf micnihi old salarigiisa hore ama micnihi lagu iibinayo shaygii ama original value lagu iibinayo markii hore magaranaysaa wuxuu ahaa min old price wuxuu ahaa 128 tusaale ahaan oo kale door baa lagu iibinayay micnihi new price soo saar lagu yidhi pricekiisa cusub soo saar waxaa muhiim ah hadda lama oran imisa micnihi lacagta ku kordhay soo saar iyo new price soo saar labadaas la soo weydiiyay haddii la oran lahaa micnihi shayga soo saar lacagta ku kordhay iyo magaranaysaa maadaama lagu yidhi 128 la kordhiyay imisa ku kordhay 128 imisa ku kordhay waa soo saari karaa waxaan ku dhufanayaa 128 loo qeyb ku dhufanayaa kadib inta kor baa soo saaraya kadibna waxaan ku darayaa 128 inta kor baa ku daraya micnihi waa salarigiisa cusub new price soo saaro لكن ما دام هذا اللي ودي بريسك عصب بس waxaan shaqeynaya hadda xagaan ku qoranayaa solution okay waxaan odhanaa qaacidada naqaanay amountiga micnihi ama amount
amount waxa la mid tahay new salary waa isku mid amountiga marka amount xaggan waxay la mid tahay new salary bay la mid tahay amountiga new salary waxay la mid tahay amount waa amountiga marka qofku helayo old price kana original bay la mid noqonaysaa marka original meesha u fahantaa original marka qaacidada aan aqaano ahayd amountiga waxay la mid tahay originalkii oo lagu dhigtay percentage kiiba ma isticmaalaya marka haddeer amountiga hadda new price bay la mid tahay marka waxaan ku dhufanayaa new price waxay la mid tahay originalkan waxaan ku bedelayaa old price inuu isku mid because of isku waxay u taagan yihiin percentage-na waa syntaxisii marka kadib haddeer new price wuxuu la mid noqonayaa old price haddeer maxaan haystay 128 oo lagu dhuftay marka maadaama hadda aan doonayo new price aan doonayo inta ku dhan aan doonayo oo magaalada new price aan direct doonayo waa in maadaama uu tahay percentage increase waa inaan ku daraa 16 aan ku daraa sababtuna waa taas soo sheegnay oo ahayd price-kiisa caadiga ah wuxuu taagan yahay markaa boqolkiiba boqol old price-ka wuxuu taagan yahay boqolkiiba boqol markaas boqolkiiba boqol haddii lagu daro 16 percentage-na waxay la mid noqonaysaa 116 percentage 116 percentage waxaan u qori karaa 1.16 oo kale waan u qori karaa micnaheedu boqol loo qaybiyo taas waa isku meesha ama intaas deyn karaa waa isku mid kaas waa 6 marka intaas ku dhufanayaa hadda 1.1 ka 6 kaas ku dhufanaya marka 1.16 kaas ku dhufanayaa kan new price muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa 148.48 waa new price inta lagu iibiyay marka hadda inta ku kordhayna waa soo saari karaa maadaama hadda aan ogahay magalanaysa inta shaygaas magalanaysa la siiyey qiimihii horena aan ogahay inta kordhay waan kala tariyaa bis kaasaasaa ku saari karaa marka taa hadda waqti badan ku dilmayno insha allah waad eegi kartaa insha allah waa soo saari waxaan maranayaa waa tijaabin kartaa inaad soo saari kartid iyo in kale tusaale ahaan oo kale haddii lagu odhan lahaa haddaan tusaale kala bixino dad tusaale ahaan oo kale lagu odhan lahaa hadda dib u raadino percentage ku kordhay hadda 116 ka hadda dib u raadino tusaale ahaan oo kale lagu yiraahdo shaygan old price-kiisa wuxuu ahaa 128 oo hadda intan haysanay new price-kiisuna waxa weeye inta soo saarnay waxay ahayd 148.48 marka waxa weeye waa inta soo saarnay new price ka dirxan soo saarnay waxaan ku qoray inta waxa raadinaya 16 ka dib u raadinaya hadda waxa lagu yiri mise percentage ku kordhay tusaale ahaan kale lagu yiri percentage ku kordhay soo saar baa lagu yiri su'aasha waxa lagu yiri min percentage ku kordhay soo saar percentage kaas lagu yiri kaasaan ku saari karaa inta kordhay solution waxa la hadda sidoo kale aan qoranaya hadda solution xagan aan ku qoranayaa قاعدة أنا قانية ما عادوا قرنية يعني amount كوها ما دي old price بس كميت يعني هذا حن قرنية new price كفيلم دي هاي فيلم دي هاي old price كا ولا قلت percentage فأنت ما قرنية كم بقولك percentage يعني بقولك خمسين وقنا خمسة هذا percentage هاي وحصل عيا بقولك إياه هذا سكول عيا يعني سبتك فورم سيلو سميتي عشان فرع عشان أنا نقص هذا اللي marka b waxa la mid noqonaysaa new price-ka b waxa la mid tahay new price-ka oo lagu dhuftay 100 oo loo qaybiyo old price taasoo shaqeynaa marka b waxa la mid tahay new price-ku wuxuu ahaa 148.48 waxaana intaasaan qoranaya 148.48 oo lagu dhuftay 100 oo loo qaybiyey originalka old price wuxuu ahaa 128 128 oo qaybinaya marka inta markaan soo qaybiyo micnaheedu 128 waxay soo baxaysaa 116 because of hadda pointigaas ku ka saaraya intaas ka 100
boqol afartii dab maxaa ka baxsan bointa ka baxsan marka boqol lagu dhufto marka waxay soo baxaysaa 116% marka maadaama aan doonayo percentage-ka inta ku kordhay aan doonayay mini hadda 116 mini waa percentage-ka mini inta ku kordhay inta shaygu ahay inta ku darsatay marka la isku daro marka percentage-ku marka wax la mid noqonaya maadaama percentage increase ay tahay percentage inaan doonayo 100 baa ka jaraya percentage waxa la mid noqonaysaa 116% oo laga jaray 100% marka waxa la mid tahay 16% marka 16% ku inta markii hore aanu haysanay waa inta ku kordhay marka waxa muhiim ah tan inaan ogaato magarasa maadaama percentage inta ka sheekeynay in 16% kaas ay tahay inta shaygu markii hore ahaa iyo inta ku darsatay oo inta ku kordhay labadooda isku daray inay isku noqonayaan 116 marka su'aalaha badanaa percentage increase ku jirto imtixaanada kale inaad iska ilaalisid oo magarasa marka lagu yiraahdo imisa percentage ku kordhay marka inaad ka jirin noqonaysaa percentage marka soo saartay haday 100 ka badnaato mar haday 100 ka badnaato 116 noqoto waxa weeye percentage shaygu asalkiisa intuu ahaa iyo inta ku darsatay la isku daray labadaas marka 100 uu ka badnaanaya marka percentage increase marka soo noqonaysaa laakiin inta ku darsatay waa inta 100 ka dheer marka 100 baa ka tirsan mar walba marka inta ayna ogaatid aad iyo aad muhiim u tahay waxyaalaha kale lagu weydiin karaa baraka qaar waxa lagu weydiin karaa old brush lagu weydiin karaa marka old brush hadii lagu weydiina formulada unba waxa isku bedelaysaa min formula ka dhigaysaa dandranaysaa min old brush waxa ka dhigaysaa such a formula kadina formulada inta ko kale oo kala bedelaysaa new brush ka kuwa kale percentage hadii uu soo ku bedelanaysaa marka formulada si loo dandriya dad taqaanid casharkana aad fahansan tahay min waxa lagu siiyay waxa laga doonayo aad iyo aad problem la'aan baad ka shaqeynaysaa wax problem min kaga imaan maayaan haddii aad su'aal qabtid ama insha Allah aad meena aad fahmin iyo meesha aad xogaa aad weli ka fahmin waad noo soo wadaagi kartaa commentiga ama insha Allah ta'ala waan isku daynaa inaan kaga jawaabo su'aalaha halkaas ku soo gabagabeynaa casharkayga insha Allah ta'ala haddii ilaahay inuu subscribe kanaalkayga siina shirkada insha Allah asxaabtay say uga faa'iideystaan والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمان عام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.